koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaadaha kalamaan godamayda kaleete qalaba kanayana kalaba isoo kala qaada qalba qalba qarshaweeye qalbigu armownaga qarxa qarshaweeye qalbigu armownaga qarxa waxaan ku soo xusuusnaa Allah u naxariistay abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex shalayow hindiya ku dhintaan la yiri waxaana igu dambaysa maalinta garoonka Muqdisho ka baxaya dawladdu ay u dirta caafimaad dibadda hadda dalya dibadda meel kasto lagu geeyo haday taadu dhamaato waa dhimahe waa cadda taas war Allah u naxariistay abwaanka anigu waxaan ku xasuustaa harare ya awas Allah yow lahelo harare ya awas Allah yow lahelo annabi waan barle waxaan ku soo xasuustaa kulmiye nahaye koralo kayel war anina may baa ka xasuusadee Allah yow galbeed galka laga xantiyo war anna waxaan ku soo xasuustaa qaran baa nahaye Allah yow quwe walla abwaan dhinta war baa u yaala disaan loo xamanayo war xan ma ahane waa dhaxal waxbuu nooga tagay hadda ka hor markuu dhintay Allah u naxariistay Cabdullaahi Doodaan ayaan wacanin leeyahay abwaan shongo saaxiibkay ah Cabdullaahi Doodaan waa dhintay wuxuu yiri ninna mawdka kama dhuuman karo kamana dheeraan qofku dhaxalka uu reebaya la isku dhaama dhaqankeena Soomaalidu iyo dhihidii suugaanta Doodaan hadii uu ka tagay dheeli baa galay buu yiri ariya waa sidaad u sheegtay hadda hadii Baarleex dhintayna nabee dhaanta dheeliya galay war dhaantada jigjiga laga ciyaaro qaryaan Doodaan baa la yiraah garbaha iyo surkaana laga dheelaa sidii dhabadii ee dhaantada Soomaalida ma war dhaantada gaalgacyo farta laga dheelaa farta war hadii lagu faduuliyo farta laga jawaabaa miya maya waa fartaanka la hadlaa ku furima faruur yahayge fartaanka la hadlaa ku furima faruur yahayge wareeda war abwaanadii waxa u batay reer Hoosland dhamaantood hoos baa laga waca abwaan gaariya hadin abwaan bacalla hadin Cabdullaahi Raaga hadin abwaan Yamiyo hadin dhamaantood waa la waca kuwaan joogana ka harimayaan iyo tanya jimcaala dhigataag abwaanadan bereebtan abwaan sahal maalan iisantan ku tabtan Ilaahay naxariisa huburo maraqto aan ku xusuusnaa war meel nin tagay laga tabay waxa la yiri waa nin jooga ceebtiis marka abwaanada inta nool hawl baa u taala waa inay gufeeyaan kaalintii ay ka baxeen kuwii dhintay warheed abwaanada aad sheegaysaan ma qarxiso bay ku dhinteen anigu waxaan dhiilaa nabad baa dawiyo deeq lagu helaa hooyadii dilow dunidan xagee dheer kuugu yaal anna waxaan dhihi lahay oo ninkii uu soo daanaaniye lagu daaraan daantuurorga ninkii uu soo daanaaniye lagu daaraan daantuurorga haye war mahaytana geeg koonfur galbeed wasiiradii wala ka qarrafsiyay laka magacaawi tumbon horta liis yo baa walaago wal yare wadhiman dadkina may leeyina wala la magacaawi kurito yar horta maday isaaqo waxaad la walagaysaa waran cawaha ku mudee war kay dhagansay waraabo makrabkii jiido madawiile lafta garaagno hab wasiiradii magacaabi Muqdisho ka fay waraaban gabahi war lafta garaagdo xamar yimid wasiirada ayo aqoonsi u soo doonay war ma yeeroobo uu rabo inuu wasiirka dhugu jaal ka soo bixinaya waraadaha wasiirada uu magacaabay lafta gareen nin madaxweynaha ahaan jira ku jira ninkii la baxay madaxweynaha Bakolan Ahmed Mashruuc ayaa wasiir laga dhigay sida cadaaladda lafta gareen oo madaxweyne wasiir uga dhigay madaxweyne xafna waa inuu wasiir ka dhigay Ahmed Baasto waraadaha waxa la yiri waan arkaa wacdaraha Sacuudiga weel banaysiga siyaasigii xil waaya ka helay eed ku weerara isagaan wajihin buu yiraa waajibku siday hayeeshe waxyeeladu ma aha say u wariyaan haddii lagu wareejo isaga hawsha lagu waabo wuxuu kii ku eedeynayo wax dhan lumiya dadweynaha isaga wabxee waxuma biiraan war heedahaya dawladda waxa weerara waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur
siminaarkii xamar loogu diido garow ku qabsaday wuxuuna yiri waqti yara haray dawladuna wax dhaxa ma qaban war ma weeranina waqtigu tirsanay xalana wuxuu yiri marqaati ka ahaada dawladda intaasoo bilood iyo intaasoo maalmood iyo intaasoo saacadood iyo intaasoo daqiiqada waqtigeedii ka hartay ogaashay hay kurba ku haysaa war lix biri kadib hadda wado documentary nabad inoo la soo bandhigays war cabdiweligaas garow maanta ma salaamay waana la sagootay war shariif hasan bamar hori bay dhaw ku sagootin una aryaa kaska cadaad war ku duugduugaysiin cali cabdullaahi cusub laba mar hore jawhar laga raacdeeyay war waxa la yiraahdaa sayid sheekh axmed madoobe kismaaye dadkii deemaha ku lahay irinta uu soo dhoobtay madaxweyne intaan lagu sagootin nasiib waxaan waraadha war ma haysiine waxaan loo joogin balaaya ku meereysataane qadar wiil Soomaaliya koobkii u qaaday aabiisna wuxuu ka tirsanaa xulka qaranka Soomaaliya waxa lagu neenaas jiray faraska cad wiilkiisana faras gudoon weeyadaasaan ku keenay ergaalkacya waxay dhihi jireen ma geelbow iga qaaday goolbow iga dhalshay maxuu la boodboodahayaa war wiilka qadar uu ku dhashaa la yiri aabiina Tanzania marka Soomaalidu waa isku qorqoray miya war cirkana ku dhashay Soomaali waa Soomaali aryaadaha ku wareerina xumaanteediyo samaanteed Soomaaliya Soomaali baale waraadha madaxweynaha Soomaaliland musabbixi oo ciidankiisa u qodmeynaya wuxuu yiri farmaajo qayr inta joogeen waxay nagu hayaan buu yiri cunno qabateen dhaqaale cunno qabateen siyaasadeed hawada xataa wanaga soo xireenuna Itoobiya xataa kama soo qadan karnuna waxaan u sheegayaa musabbixi iyo intii dhageysanaysa inaysan marnaba ka harin mustaqbalka farmaajaysan iyo horumarka qayraysan war intaas qowdan baa dawladda mar hore u sheegay Muuse muxuu wax kale u sheegi waay war meesha qowdu ka yeertay waa baar dheere ciidamana la qarxiyaa la yiri Soomaaliya Itoobiyana soo jira qasaarana war laga ma hayaa la yiri ariya baar dheere ma ahina meesha isbitaalka laga furay waa gawaan dheere xildhibaanana ka qayb gala furitaankiisa cabdi qaybdid iyo ubax tahliil ay kamid yihiin walaada taliskii amisom Itoobiya la wareegtaa in dhaweyd la lahaaye arrinka ma jira war Uganda laga qaaday Itoobiya waa dariskaaga soo dhaweey al-shabaab markii la arkay in Itoobiya la soo dhaweynay waa u maleynay war iyaga kasbay taas war al-shabaab toddoba gaari afgooy meel u muuqatay ku gubeen masaakiin dhaxul ku soo rartaana wadati war baarlamaanka Hirshabelle xuquuqdooda ay mooshin ka keeneen waxayna dhaheen cali gudlaa waana dhacay warnimada waxa la yiri dabka habeenka sabakaara ka kaca sirta ka dambaysa la hela waxa la yiri si murno yimaado ayaa boosaska la iska gubtaa kadibna nin walba aan halkaan buu leeyahay si loogu qaybiyo dibadda in looga yimaad baan moodi jiray hadduu ayaga dhexdooda ay hays gubeen aryaadaha anigu waxaan la yaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada wuxuu yiri dhalinyarada laga rabaa inay ammaanka degmooyinka sugaan muga waa yaabe dawladda loo doortay iyo ciidankeeri aaween horta odayaashu wasaaradda dhalinyarada maxay ka dhex qabtaan war odayaalka shabaab may dhaxgili war dhalinyarada soo odayaashu ma dhalin gabayadii horeetee bulshada looga wada yaabshay baadi goobka xoolihii maqnaaniman ku soo daalay dawladdii hore qaadatay nugu yiraahdeen ragga maanta joogana wuxuu qaba ma sheegaane maxaan gabayga uga daalayaa dhanay u hilsheen maxaan gabayga uga daalayaa dhanay u hayaan qaan